ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallada ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanada Meedobiid iyo dhulka hawdka ee u dhow ee hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose. Qoraal ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in howlgalkan ahaa mid aad u qorshaysan isla markaana ay fuliyeen ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland ee lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo saacadii la soo dhaafay isku urursanayay deegaanadaasi. hase yeeshee warka qoraalka ay ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland kuma aysan tirada rasmiga ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee lagu dilay howlgalkaasi. sidoo kale qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in dadka ku nool deegaanka Janaay Cabdulle iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada ay si weyn u taageereen ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland oo imanka howlgallo xooggan ka wada deegaano fara badan oo hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose. howlgalladaas oo ujeedadu tahay in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab laga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgalladan ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ilaa ma inta ay ka sifaynayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab isla markaana ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. si kastaba ahaatee ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen howlgallo isdaba joog ah kuwaas oo ay ka sameeyeen deegaano fara badan oo hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose, waxaana howlgalladaasi lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyadoona deegaano fara badan looga qabsaday.